والله أخبارنا ولا أسيها عبانك السلام عليكم. isaa warqadaas ii soo diray wuxuu yidhi TikTok ku dhagan maxaa shalay social media ka dhacay siba aalada TikTok buuqi faraha badan muxuu ahaa ciwaanadii maxaa musiibadii ama duufaantii shalay soo gashay TikTok ayaan idinka dabageyn doonaa haddii aan ugu cusub tahay barnaamijka inoo qurxi oo like inoo saar subscribe ta hadda u qalmaan nagu sharaf ku soo dhawaada barnaamijkeena shalay sholad aalada social media siba dhankaasi TikTok aad bay u qasnayd iska daba wareeg jahwareer baqdin akoona brevet la geliyay kuwa ilaa hadda brevet ku jira xaalado fara badan baa dhacay khaladaad fara badanna dadku waa laga faafiyay dadkii dhageystayaasha ahaa ama daawadayaasha ahaa oo meeshaas bulshadooda madaalada la qaadan jirana waxyaalo khiyaali ah loogu sheekeeyay dhowr arrimood baan rabaa inaan dul istaago oo waxba kama jiraana dhowr arrimood oo dadka dhalinyarada caanka ah ee social media siba TikTok isticmaala iyaduna ay ku baraarugsaneen baan rabaa inaan ka daba tago xaaladihii gabdhihii laga dhibaateeyay dhankaas iyo aaladana xaaladihii ay ciwaanadooda ku waayeenna sidii bulshada aarahdooda iyo waxyaalihii lagu saadaaliyana waa idinka dabageyn doonaa horta dareenka waxaan la wadaagayaa ama muuqaalkan ujeedadiisu koowaad waxay tahay in marka hore aan la wadaago inay wax xun tahay target qof target leh waxaan ka wadaa dadka social media caanka baa dareemi kara 100,000 markaad hamiga ku haysid oo muddo aad sugaysid oo aad gaartid 200,000 half million iyo something macnaha waxa waaye waa target waa wax aad habeena dhan sugaysay oo aad maalin inaad gaari doonto niyadda ku haysay markii aad gaartid xogaha in dhibaato loo geysto waa wax aad u xun gabdhaasna waxaa leeyahay waxaan idin rajeynayaa in ciwaanadiinii aad ku tiiri tacabeesheen inuu idiin soo laaban doonaan tan koowaad waa taas maadaama dad baraha bulshada ku wada jiro normally waxyaalaha iyagu ay soo gudbiyaan dee xaqiiqatan qof taageersan mihi laakiinse maadaama platformka social media dadka wax kusoo gudbiya ka wada midnahay dareenka in la isla wadaago oo la isgarab istaago way ku qurux badan tahay kow gabdhahaas saasaan mataqaana uga gudbiyaa arrinta labaad ee aan rabo in aan meeshaan ka xaqiijiyaa waxay tahay arrinka la yiraahdo report arrinka reportka 80% sida u badan tahay waa waxba kama jiraan sababtoo ah markaan maskaxiyan ku fiirino dad fara badan oo qabiilo dhan u gafaa jira dad fara badan oo dhan oo family ayaa jira dadkaas maalin kasta waa la report gareeyaa tan meesha ugu hooseysan ka soo qaadeenaa in maalintii ay 10 report bas ay ku dhacdo ka soo qaad meesha ugu hooseysan ka soo qabo bishii markii maalintii 10 report kaliya ku dhacdo bishii ku dhawaad 300 report ku dhacaysa bishii hadii 300 report ku dhacdo 12 bilood waa ziyaada dadkaas marka meesha ugu hooseysa marka aan ka qabanay asaa u dareemi kartaan boorta ciwaanadooda bixilaayeen dad baa jira diinta ku gafay nabiga caayo jiray oo rib Soomaali Maxamed oo dhan intii la isku xataa la isku sheer gareeyay leeyahay report gareey oo loo report gareeyay TikTok aaladaha reportka aad ku adeegay ka mid tahay waliba marka qof aad report gareyso 5 minutes gudahood baa lagu soo jawaabaya xataa long time 5 minutes gudahood baa waxa uu leeyahay ama gartaas waa leedahay ama leeyahay waa lagu kala baxaya qaybta reportka TikTok aad buu adeegaya laakiin midda isweydiinta mudan baa waxay tahay oo dhalinyarada social media isticmaasho waliba qaybta TikTok caanka ka ah halkan point si fiican loola socdo pointigan dhalinyaradaas hal la wadaago u sheer gareeya war meeshaan u jeedaan marka aad tagtid qaybtan waxa ugu hooseeya waa from TikTok macnaha waxyaalaha TikTok kaaga imaanaya way xaalad kasta oo userkaaga ku soo cusboonaata iyo report kasta oo userkaaga ku soo dhaca iyo khalad walba oo userkaaga u galo halkaas lagu soo dhigayaa community guideline-ka meesha dadka uu kala hadlo waa halkaas marka anaga dad caan nahay ma la fiirinayo ma lagu mashquulayo macnaha waxa waaye comments iyo like-tiya badan meeshaas ma la galaba ha ka saartay ciwaankaaga hadii dhibaato ku soo socoto meelaha fariimaha iyo digniinaha lagaaga soo dirayo waa meeshaas inaad taas ogaataan baa muhiim ah waxaan la hadlayaa waa dhalinyarada TikTok caanka ka ah muuqaalkan inta gaarsiin kartaan asxaabay gaarsiiyo waayahay arrinka saddexaad ee u gudbiyaa waxay tahay banka wax ugu horeeyo oo ku iman kara waxay tahay wax cawra ah caruurta yaryarka ah waxyaalaha caanka officialka wada ah ee la wada og yahay in TikTok la wadaago kow in muuqaaladaada dacwad isku mid ah laga soo gudbiyo that means waxaan ka wadaa muuqaaladaada marka dacwad isku mid ah maalin kasta laga gudbiyo one day oo computerka ama mashiinka TikTok oo review kugu sameeyo
dacwadihii iyo muuqaaladii oo isugu kaa qabto laba dignood baa lagu soo dirayaa haddii 24 saac ama waqtiga lagu qabtaa kaga jawaab weydo ciwaankaaga wato automatic waa ban taasna ay elefanteen baa u maleynaya tusaale ahaan ilmaha la soo fadhiistaa TikTok la TikTok mishiinka kuma qaban dacwad baa dhowr jil laga gudbiyay qofkan ilmuhu meesha keenaa dhag maalinka review mishiinka lagu sameynayo ilmahaas uu ku jiro dacwadaasna ay ku taalay digniin baa lagu soo dirayaa muuqaaladaas ka saar baa leeyahay 24 saac gudood kaga saar haddii aad ka saari weydid automatic markaas ban lagu qabtaa suurtagal ah waxaas dhanka soo gadoon marka bulshada Soomaaliyeed dhowr qaybood u kala baxday qaar waxay dhaheen flowers bay ku shubteen that's why marka milyanka markii ay gaareen looga xiray su'aasha weydiinta maanta waxay tahay haddii flowers bay ku shubteen markii 900 milyan markii 850 milyan milyan wayba gaareen maxaa waqtigii farxadda iyo isku soo aadiyay iyo bank isku soo aadiyay sidoo kale waxay leeyihiin linki baa loo diray aragtida dhankaas Facebook marka fiirisid gabdhahan linki baa loo diray linkiga marka TikTok markuu WhatsApp lagu soo diro ama qof adig ku soo karbaasho kale ama laba qof oo isku dhagan oo kale ama video qosol ah oo kale waxa ku dhufsanaysa TikTok ka daawanaysa kadib iska soo noqonaysa taa haday dhacdina dadka aragtidaas qaba taa haday dhacdina qofkii linki u soo diray yaqaan wax kale qarsoomay malaha qofkaas loo raacanaya in gabar kale oo tik blue haysato ay report gareysay taasna aragtidaasna waa aragti raqiis ah sababtoo ah qofka haduu hal qof intuu report gareeyo oo TikTok uu ka bixi lahaa TikTok cid joog lahayn malaha aniga la report gareyn lahaa dadku dhan baa la report gareyn lahaa qof joog lahaa malaha gabadha iyadu afkeedu waxay ka cadeysay in 45,000 oo ku dhawaado report maalinkaas loo soo diray iyada in 45,000 oo qof ay reportin hadii ciwaankeedu uu joogay marka hal qof baan report gareeyo ciwaankeena meesha uu ka baxay saas darteed buu uga baxay absolutely ama tig blue haysta absolutely wax soconay ma tig blue haduu haysto qofkan waa aqoonsi qofkaas inuu TikTok gaas leeyahay waa lagu aqoonsanaya ma aha dad kale wax ma dheera tigtan blue gaadid masaami waa u maleysay macna 4.5 ki Soomaali madaxa kaga jiro ma kaga jiro qofkan tigtan blue haduu leeyahay waa anigoo siki hadda YouTube kiga aniga tig pasar macna waa ka siki bil xaaji ahaan ina YouTube ka leeyahay laas qofka waxaan doono kuma sameyn karo qofka report been intaan ka gudbiyo ciwaan YouTube laga ma xiriir wax socon ka aqliyadaas wax socon karo hab yaraatee ma marka dad baa tir dumarku isku dhex dhufanayo ka dhex faa'iideysanaya anu waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed idinka dumar isku ah isxiga isku diirnaxaya hortii aan idinka kala dhex faa'iideysan waa qodob ugu dambeeya meeshan ku soo gabagabeynayaan wuxuu yahay muuqaalka war TikTok kaliya waxyaalaha lagaaga xiri karo waxa koow ka ah muuqaalo adiga aad sameeynayay oo lagu dacweyn jiray one day markii uu mashiinkan waa wareegaa maalin waxa laga yaabaa aadan filinayn in adiga ciwaankaaga review lagu sameeyo dacwadaha ka yaal iyo kiisaska anaga TikTok waa isticmaali jirnay waxaana soo martay one day subax waa soo kacaysa mise muuqaal baa lagu dhagan yahay muuqaalkaas waxa laga yaabaa 10 bir korna dhigtay waa soo kacaysa mise muuqaalkaas lagu dhagan yahay waa fiirinaysa ka saar baa lagu leeyahay dacwad baa laga soo gudbiyay muuqaalkaas waa tirtiraysa way dhacday mid waxa jirta aad soo dhigtid automatically ma soo gelinba TikTok mu video iyo soo gelinba automatically community guideline ba ku dhigan sababtoo wax adiga marka muuqaalka ku saabsan buu diiday automatically waa jira review machine waa jira machine wareegayo oo markaas uu dul dhacay marka kulli anu saasan u badinayaa dacwad laga gudbin jiray iyo machine-kii review ku sameeyay ama kormeer ku sameeyay ciwaankoodii in ay isku qabatay bankaasna kulli hadii muddo dheer waqti la siiyo waa laga dabatay karaa waxaan u rajeynayaa in ciwaanadoodii u soo laabtaan oo farxadooda u soo laabto barnaamijka idin kaga dabageynaya xaaladihii ka taagnaa dhankaas TikTok intaasaan kusoo gabagabeynaya wixii aragti ahaa iyo wixii garab istaag ahaa iyo inaan ka xumahay dhaawaca soo gaaray gabdhahaas targetkoodii markii ay gaareen la damage gareeyana inaan aad uga xumahayna muuqaalkana idin kula wadaagaya inta aan ku kulmi doono barnaamij kala mid ah hadii aan ugu cusub tahay muuqaalka inoo qurxiyo like inoo saar subscribe tada hada u qalmana maalin kasta ugu sharaf maan ku dhaha macnaha ii gar camal no bis inta aan ku kulmi doono barnaamij kala mid ah jaw